saaka waxaan la kulanay odayaasha iyo culimadiinka degmada Xarshin oo nu ka wada hadlaynay baahiyaha degmada iyo guud ahaan qaab socodka dawladda iyo degmadu halkay marayso iyadoo uu ahaa kormeer xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed uu soo abaabulay oo la rabay in bulshadii lagu soo tashado oo xaaladda bulshada lagu soo ogaado si fiican buu kulanku noogu dhacay bulshadu dhinaceegana waxay soo dhigtay baahiyaha degmadu qabto oo aad ugu muhiimsan tahay wadada u dhaxaysa qabar bay xilaa Xarshin nasiib wanaag sanadkan waxay degmada wadadaasi ku jirtaa mashaariicda qorsheysan ay xukuumaddu fulin doonto marka wadadaas insha Allah wado sanadkan bilaabmi doonta baahiyo kale guud oo balaaran oo dadka ku dhaqan degmadan haysta jira kuwaana insha Allah xisbi ahaan iyo xukuumad ahaanba kolba sidii loo kala furfuri karo awoodda xukuumadda in wax loogu qaban doonaan ayaan isku afgaranay marka guud ahaan jawi wanaagsan ay ku soo dhamaaday kulankii maanta aan la lahayn odayaasha iyo culimadiinka